halkan daawade waa halkudhig news haddii aan ugu cusub tahay fadlan daawade subscribe sar channelkan saraakiil iyo dagaalyahano ka tirsan ururka al-shabaab ayaa lagu laayay Jubbada Dhexe wararka naga soo gaaraya gobolka Jubbada Dhexe koonfurta Soomaaliya ayaa sheegaya in duqeymo xoog leh ay xalay ka dhaceen degmooyinka Jilib iyo Bu'aalo ka wada tirsan gobolkaas duqeymahaas ayaa la sheegaya in bartilmaameedkoodu ahaa goobo lagu tababaro dagaalyahano ka tirsan al-shabaab waxayna duqeynta ugu cusleed ka dhacday xarun tababaro ku taal inta u dhaxaysa Jilib iyo deegaan lagu magacaabo Hargeysa yari sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan doonka Soomaaliya saraakiisha u hadashay militariga Soomaaliya oo soo xiganaya ila wareedyo kala duwan ayaa sheegay inay ogaadeen in xilligii duqeymahaasi ay dhacayeen xarunta lala beegsaday ay ka socotay muxaadaro lagu dhiirigelinayay ciidanka al-shabaab oo tababarkoodu uu marayay meel gabagaba ah sidoo kale saraakiil ajnabi ah oo tababarkaas bixinaysay ayaa la sheegay inay ku sugnaayeen xarunta la beegsaday kuwa oo la aaminsan yahay in lagu laayay duqeyntaas dhinaca kale degmada Bu'aale ee xarunta gobolka Jubbada Dhexe ayaa waxa la sheegay in duqeynka lagu beegsaday sargaal ka tirsanaa tababarayaasha amniyaadka al-shabaab kaas oo lagu beegsaday guri uu ka deganaa degmada Bu'aale saraakiisha ka tirsan wardoonka militariga Soomaaliya inoo waramay ayaa sheegay in duqeymahaas ay geysteen diyaarado laga leeyahay dalka Faransiiska sargaalkaana la beegsaday xilli uu gurigiisa galay daqiiqado kadib sargaalkaas ka tirsanaa tababarayaasha amniyaadka al-shabaab ayaa magaciisa lagu sheegay Macallin Yunis Karaama waxaana al-shabaab looga dhex yaqaanay Abu Cutayba iyadoo duqeyntii la beegsaday gurigiisa lagu 12 dagaalame oo ilaalo u ahaa ugu dambeyntii saraakiishan ayaa sheegay in howlgalkaas ay iska kaashadeen sirdoonka Soomaaliya iyo kan dawladda Faransiiska halkan daawade waa halkudhig news